أيها الإنسان هل تبكي لما أبكاني أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران اليأس يعبث بالأمل ويمز كل كيان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان العين فارقها الكرى والقلب فارقه الأمان وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوى وأرى هناك أحبتي يلقون أصناف الهوى وأنا هنا في غربتي ما لي بنصرتهم يدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله maaragtay xafladeen ay noo hagaagto bilow ilaa dhammaad walaalaha gobolada ka yimid iyo walaalaha cuslo joogaba aad baan mar labaan ugu mahadcelinay ulajeedadaydu ma ahayd inaan halkaan aan khudba ka akhriyo ulajeedadaydu waxay ahayd inaan maaragtay shirka furo shirkiina waa noo furan yahay soo dhawaada mar labaad وانا محسنتي ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إلهي بقى مهدا إسكاله سبحانه وتعالى نبدليو يا حريص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دشي سالله يارو إلهي وحن ويديسنا يا سبحانه وتعالى لما أنت كلن كيانا وكلن بركيسنا إلهي كريو إلهي دلتيس لولجيدو إلهي رالي وكيه سبحانه وتعالى إلهي وحن ويديسنا أنتي سو أروريسي أنتي سكنتي أنتي كتريسي أنتي كابتي أنتي كبتي لما أنت بإلهي دلبي ودنو دافو سبحانه وتعالى لما أنت أنا ما ارتدأ له خيره وخيرك سكها الشرع إلهي ونغرب سبحانه وتعالى إلهي وحن ويديسنا يا جل وعلا إنه توفيق إنه وافجيه الدنيا آخرة بحي مصلحته إنه وجرته إلهي إنه نقاسيه رجعنا يا دمر كنا يا عروتنا يا دمانت بإلهي إنه من إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة أنت بديت ولا يا سلامتهن إلهي خير هيدين سيو كلن كنا ونحسن مرة كسوة قيب قشين رسولتي مادين وديارسين ونويتين إلهي خير يأتينا الله كسيو كلن ونحسن نسوي ماذا ولي إن شاء الله تعالى إلى أنت مرتي إلى آخر لا يقاري كلن كآخره ورنتا لا يقاري كلن كناني حقيقة وكلن إلهي درتي سلولجي سبحانه وتعالى
qofka wiilka ragga muslimiinta iyo dumarka muslimiinta intuba falalka ay qabanayaan adduunka waxaa loogu talagalay marka koowaad inay ka eegaan xagga raalli ahaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala. wixii alla naftiisa aan loola jeedinin waa hal bacaad lagu lisay, adigana ku anfici maayaan adduunyada, aakhirana ku anfici maayaan, mana mireeyaan waxaan maaragtay ikhlaaska iyo daacanimada iyo darta ilaahay haddii waayaan. qofka ondaal buu ka qaadayaa iyo maaragtay iyo noog mooyaane waxba kale u tari maayaan. arrintaas weeyaan. arrinta labaade oo muhiimka ah, waxaad ogaatiin dadka hadda meesha aan isugu yimi walaalaha iyo gabdhaha maaragtay intuba dad waxaan nahay isla taariikh ah, dad walaalo ah oo isxigtiyan ayaan nahay. yacni aniga oo aad maaragtay shareecada islaamka fiirinaya dhinaceeda, dadku inay iskaashadaan oo maaragtay khayrka isu kaashadaan waa wax shareecadu aad iyo aad ay ugu boorinaysa waqti dhammaantii, aadna iyo aadna u wanaagsan. watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan. dadku inay khayrka isu kaashadaan ilaahay baana amray subxaanahu wa tacaala. dadka xigtada ah ayaguna xaq bay usii leeyihiin khayrka inay isu kaalmeeyaan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay mar intii jaahiliyada islaamkii ka hor ayaa wuxuu kala qayb galay adeerayaashiis fadhi ay lahaayeen, adeeryaalkiis ay lahaayeen, isagoo yar buu ka qayb galay. fadhigaasi fadhi reereed buu ahaa, laakiin de reerkaasi waxay ka talinayeen markaa khayr bay ka talinayeen. oo dadka socotada ku ah ama koytada ku ah magaalada Maka oo la dulmi jiray ayaa waxay go-aan ka gaareen inay gacan siiyaan dadka ay badbaadiyaan. kabacdi markuu nabi noqday calayhi salaatu wasalaam, xilfu lfuduul baa la oran jiray, heshiis baa lagu gaaray meeshaas. markuu nabi noqday ee madiina u tegey ayuu saxaabada u sheegay nabigu, heshiiskaas baan ka qayb galayo, haddii islaamka low duciituhu fi lislaami la ajabtuhu. nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam, maanta oan islaam ah haddii laygu yeeri lahay waan ajiibi lahay buu maarta. yani uu sheegay hadafkiisa iyo miraha ka dhashay onbaal ayaa la eegaa ama la fiiriyaa. sidaa daraaddeeda niyada aan wanaagsano, dadkeena inaan wax u qabano, inaan maaragtay tashano, inaan ilaahay sidaan u raali gelin lahayn adduunya aakhiro ayaa isugu nimid. inkastoo laf aynu nahay, haddana dad muslimiinaan nahay qabla kulli shay, dad walaalana way nahay. waxaan isu kaashanaynana ma aha maanta dulmi. dadka qaarkood reer waxay isugu yimaadeen dulmi isugu yimaadeen, laakiin fadhigan oo kale waa fadhi cibaado weeyaan. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma. walaalkaa gacansii, xagga dhalka walaalka dhalkaa ujeeda, gacansii hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay. saxaabadu qaacidadaas qaacida jaahiliyadu adeegsan jireen bi islaam ka hor. saxaaba la yaabay, yaa rasuul allah, in kaana madluuman nansuruhu fa kayfa nansuru idaa kaana dhaalim ba yidhahdeen. haddii laga gardaran yahay waxa weeyaan waa isgarab taagaynaa, laakiin hadduu gardaran yahay see u gargaarnaa buu nabi ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam. markaasuu uri tamnacuhu can adulmi fa ina dalika nasr. xumidaad ka celinaysaa, taasi baa gargaarkiisa uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. xaqiiqadu waa saas weeyaan, dadku khayrka isu sheegaan. qofka ku xiga ayaa kugu xaq leh, walaqrabuuna awlaa bilmacruuf. dadka xigtada ah ayaa ku xaq leh maaragtay wanaagga, leanna wanaag wuxuu ka bilowdaa sida loo kala horeyso, sax ma? gurigaagaa u ka bilaabaysaa, carruurtaada iyo xaaskaaga haddaad ka bilaabi weydo ee meelo kale u boodid, waxa weeyaan guri hoos ka qaawani maarata waxba mataraya. marka waandir cashiiraadka alaqrabiin baa nabiga lagu bilaabay calayhi salatu wasalaam. dacwada qaraabada kuu dhow marka hore u dig baa leeyahy. marka waktigu inuu ugu yaryahay waan ogahay, hadalla fara badanna waan oran lahay, laakiin waxaa la yidhahdaa maa laa yutraku kulluhu laa yutraku julluh. waxaad wada gaari weysid lagama wada tagay, waxaad ka gaarto ayaa maarata la qabsada. waxaan oranayaa hadalkayga aragteyda hore taas weeyaan. waa khayr baan isugu nimid. ilaah wuxuu leeyahay, laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. kulamada la yeesho iyo fadhiyada la isugu yimaado waxba khayra ma laha buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, ilaa man amara bisadaqa. fadhigii iyo golihii wanaag sadaqa la isku amrayo mooyaane, ixsaanka iyo sadaqada la isku amrayo mooyaane, ama wanaag dadka loogu sheegayo, aw islaaxin bayna annaas, ama dadka maaragtay islaax dhexdooda lagu dhigayo, in sadaqa dadka lagu sadaqa loogu bixinayo, in wanaag la isugu sheegayo, iyo in maaragtay dad isdagaalamay la heshiisiinayo. intaasi waxa weya waa kulamada ilaahay jecel yahay subxaanahu wa tacaala, inta maarata dulmigana ka mara. marka kulankeenan intaba waa leeyahay, waa nicmad ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacala. marka waa cibaada, masaajidna waan joognaa,
وانا مارتي أرن عبادات مارتي نيجا مرك حاجة وناكسر قفل وناكسر مدوامي داسويان مثل لبعض وحنا ولاتين ربك بعد كل نقول مينو سيشير مينو ساعة يربع نورانينا تراسد بانها لكن وحوارك ريا وأنواركنا وفلك وناكسر عن كتبنا أي أنواركنا قفل باو لمن يأدونك ولا مريض بان بامرين ولا مرينا جانس بان ما انتهي سنة لكن وقت ينجو بين محي كتجتان لوك عن كتجنا هي لم من نقوليسا إن أن ما تقفكوا أسوي بهذا كتجين أو إسكتجو خير يشرب منا أما قفكوا إنه شر كتجو أما خير أو كتجو تسبين نقول كريسا بركة إلهي وحولي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين تذكر إلهي سبحانه وتعالى وحولي هي ونكتب ما قدموا قفكوا وحرم مرصدي أسوي صليستوا وقرينا وآثارهم رات كودنا وقرينا بليه رات كوا محل وقبلكم بتجي خير بوبيري وكدنت انت خير كاس جيرو وقريا حميد بيرتي وكدمتي حميداس انت جرتو دنبيgeeda qaadaysa nabi wuxuu noo sheegay nabi aadam wiilkiisii hore gardaro weelkiis ku dilay qof kasto la dilo gardaro lagu dilo ila qiyaam la gaarayo isagoo dambigiisu leeyahay annahu awwal man sanna al-qatl dil oo gardaro ninkii ugu horeeyo sameeyay baa wanaaguna waa sidoo kale hadad wanaag ka tagtid وناقص والوقرية ونكتب ما قدموا وآثارهم راد كودين والوقرينا مركا إن الراد وناسن كتبنا كيد بعد بيرتي ولا حسنية وكلمتي أدي والوقرية علمي بعد برتي والو انتفاعية والوقرية أقوم وحسيرة وحبي عنيان وحبي أسس والوقرية قف بعد وناق برتي وناقي حداد حمين كتكتين واسلو كله خربات بكتكتي مات منكر بعد كتكتي مجرد ما كلمتك بعد منكر بقوس عليها ده استعمال أي شيء marka labada qofku inuu fiiriyo maxaan ka tagi karaa maxaan noloshayda aan maartay anoo dhintay ka bacdi ii socon kara waa inuu qofku ka fikiraa caruurta wanaagsan baa kamid ah dhowr buu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadku waxyaalaha ay mujtamacanagu u baahan yihiin hadalka waan soo googoynayaa waxyaalaha ugu muhiimsan bini aadamku waxaa la yidhaahdaa saddex arrimoodba waa laga maarmaan caafimaadku waa laga maarmaan nabadgelyaduna waa laga maarmaan waxaa la yidhaahdo raashinkuna waa laga maarmaan maarta مدو وحيالها كور مرتي كمدين سو صح ما انت النبي انه وحو كل بي هالحديث عليه الصلاه والسلام انت عيد كلا كهل البشر كلا وسك كهل او اذا من اصبح منكم امنا في سربه وعنده قوت يومه يعني من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها ونبي عليه الصلاه والسلام بنادم حبه هي قفك وبريستا اسغو نبدغليه كنول بو نبي عليه الصلاه والسلام isagoo nabadgelyo ku jira oo qofkii ku abareysta oo nabad qaba waliba nabadgelyadu markay tahay fi sirbi reerkiisa soo ku dhex jira qofku waxa laga yaabaa inuu reerkiisa uu ka fog nabadgelyo helo laakiin nabadgelyo maarta fiican ma ama ma dhamaystiran ma laakiin reerkiisa markuu ku sii dhex nool yahay in nabadgelyo ku haysto aaminan fi sirbi oo nabul xaala kawni fi sirbi yani qoladiisa oo ku nool nabadgelyo hadda nool way ku haysato wala qurbaad joogtaa nabadgelyadaas naga dhamaystiran ma laakiin marka nabadgelyo Soomaali ku haysato reerkaaga aad ku dhex jirto in adeerka iyo abtiga iyo awowga iyo ayayda dhinacyada ka degan yihiin nabadgelyo runta taas weeyaan nabadgelyo runta ku haysto markaasuu nabigu qofkii maad waa bareysta asoo reerkiisa ku dhex nool nabadgelyana haysta isla markaasna mucaafan fi jasadihi jirkiisuna uu caafimaad qabo yani al-amn as-sihhi baa leedahay xagga nabadgelyada oo caafimaad qofkuna caafimaad haysto arrinta saddexaadna waa cindahu quutu yawmihi maalintiina maarta bilkiisa haysta wuxuu cuni lahaa فكان ما حيز الدنيا بحذافير ونقول أدوية الرشيد ودمانت وإنتاس أدوية إذا الله صور أبري لم يتنوري الدنيا وإنتاس ويا أنا بحاول جدي أهل كسي مهمسن عفماتك إيو ما قرنا يسند بالجليادة إيو راشينك سد حلا تير سكو هياتي لا سد حلا وحصل هذه اللي هذا أنت كإيمانية وتير كعلمي قوية قف كنا بالجليد مجاري كره إلا أو ما تقف وحبرتي أمور قف راشين مهري كرايو إلا قف وحبرتي أمور قف الصورة قال ما عافمات لما يستروا يشو علمي جمو يعني مركا علمي هو فريه أثر كأيوية سادرت بالقرآن كأي حديث النبي كان أدلو جبور هنا يا علمك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميسي مي تدو حجرنا يدنا وحجرنا كوفي ستين ظروفتا إلى حيسته قرابتنا يعني طلقنا dadka muslimiinta ka guud ahaan dibka haystaahay waa dib oo leeyahay marad jahl xaga jahlnimada qofku hadii uu wax barto madaxa waa ka xorooba maskaxda ka xorooba oo fikradaha maartay dhan wada qaadanayo
qofku hadduu wax barto muruqii Soomaaliya waxbuu la soo baxaya qofku hadduu wax u barto oo qoon u yeesho waxa weeyaan wuxuu noqonayaa adduunka power waa cilmi waa power weeyaan awood weeyaan xaqiiqatan awood runta waa intaas weeyaan waxaad u fiirsantiin dawlad wax yar soo saarta oo cilmi aqoon leh laakiin aan lahayn source-gaan kale ama maartay khayraadka dabiiciga ah oo adduunyada dhan controleysa arkaysa maartay rag maartay lacagtii meel dhigaan waayay oo maartay khayraad dabiici ilaahay siiyay oo wixii aan ilaasho karin laga daldalanayo waa arkaysin maxaa lagu xukumaa qoran maskaxda iyo cilmiga ku xukumaysa marka cilmigu waa power weeyaan والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaa magacayga la yidhaha Mahad Cali waxaan ka mid ahay walaalaha kaga yimid waddanka Sweden khaasatan magaalada Gothenburg ama Göteborg oo taqaanaa waxaa horta mahad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala oo kulankan inuu noo qabsoomo annagana aan ka soo qayb galno noo fududeeyey oo noo hirgeliyey Allah mahad ka gaarto midda labaad waxaa mahad iska leh walaalihii waqtigooda u huray oo ayagana qabanqaabiyey oo ka shaqeeyey inuu kulankan u dhaco sidoo kale waxaa mahad iska leh walaalaha meel kasta ka yimaadaan ee ka soo qayb galay intaa ka bacdi hadda waqtigu waa yar yahay mashruuca meesha la iskugu yimid ama kelmadda saldhigga u ah ururkan shir sanadeedkiisa waxaa waaye horumarinta bulshada bulshadana markii wajiyo badan ay leedahay weji ku muhiimsan shaygaan oo sheego waa midda la yidhaahdo waxbarashada ama aqoonta ama cilmiga waxaan rabaa marka aniga uma jirta marka wixii hadal qiimo lahay oo baraarujin ama taariikh ahay waxaa dhaheen dadkii iga horeeyey waxaan rabaa oo keliya marka inaan wax yar aan taabto hay-addan ama magacaas meesha ku qoran ee la yidhaahdo Orphan Care haddii la Soomaaliyana ah agoon u gargaari ama agoon gargaari inaan wax yarsay ku abuurantay iyo hadda wax meeshay marayso inaan soo koobo waa waqti badan oo u baahneed laakiin hadda waxaad keeni kartaa wax kasta aan soo gaabo ayadoo faahfaahsan homepage oo leedahay ururkan oo la yiraahdo orphancare.net walaalayaal waxaa ogsoontiin oo maanta isku sheegayno in dadkeena meel walba ay joogaan dhibaato badan ay haysatay ilaa haddana ay haysato waxaa dhacday marka walaalahaas sida maanta deerta xanuunka aan hadda isku sheegayno oo taariikhda oo laga soo sheekeeyey in dad walaalo ah rag iyo dumar leh ee magaalada Sweden degan khaasatan Gothenburg inay baaritaanka bacdi ay go'aansadeen inay wax ka qabtaan baahiyada tirada badan ee ka jira dad waddankeennii khaasatan haysta dadkeena walaalayaal baahida aan isdhihi karno waxaad ka qaban kartaan oo markaas nala mudnaatay waxay noqotay baahida agoomaha agoon markaan leenahay waxaa jirta agoon adeer haysata ama abti haysata ama eedda haysata ama waalid aabbihii un baa ka dhinta maahine laakiin waalid kaloo garab istaagan oo baahidii bulsho markaas u baahnaa lahay kala qabtira haystaa jira laakiin waxaan annaga ama ururkan loo aasaasay inuu u istaago kuwa aan haysan wax garab istaaga oo ay ugu horeeyaan garab istaag inay ka helaan aniga iyo adinka ururkan waxaan aasaasnay marka 2010 waxaan ugu talagalnay inay u adeego agoomahaas faraha badan oo waxba aan haysan waxaad ogsoontiin meesha ku soo koobnay saddex baahi in u weyn tahay waxa agoonka haysata waa waxbarasho la'aan waa nolol la'aan waa caafimaad darro waxaan marka go'aansanay marka oo urur go'aansaday intuu hal qof hal agoon waxna bari lahaa waxna sii lahaa inay ku habboon tahay meeshii hal can waxna ku cuni lahaay waxna ku bara lahaay inay laba can wax ku bartaan waxaan istusnay inay waxbarashadu tahay waxa haddii la siiyo asagu birinta dhibaatada kale iska saari karo oo gaajana iska daaweyn karo cudurna iska daaweyn karo hadduu wax barto sidaas awgeed annagoo marka aragnayna waxbarashadu inay tahay iftiinka nolosha ayaan waxaan hadaf uga dhignay inaan haddeertaan agoontaasayto ururkan Orphan Care
oo ka baahi tiro xagga waxbarashada ka caawiyo walaalayaal ururkan looma aasaasin waxaa walaalkii ka dhawaajiyey NGO waxaa la yidhaahdo NGO wadankan qofkii muddo joogay wax badan oo baranaya gaalada noolaaday wax badan oo ka baranaya waxaan ogsoonahay ururada samafalka mahmayo waxaa jirta la yidhaahdo kolley soomaalina waa ku jirta English iyo Swedish labada waa ku maqlay soomaalina kolley waxaa waaye nin rootigiis waa nin suntiis macnaha waxaa waaye dadku inay dhibaatoodaan oo maxaa la yidhaahdaa ay gaajoodaan oo ay dhib ku jiraan waxay dan u tahay dadka sarahan ku jira ninay dan u tahay oo guri muraayada ku jiraayo baabuur qurxan ku wadanayo NGO-gan wax dhan u qabta waa intaas waa sidaas awal anaga aqoon u leh waxyaabaha NGO iyo dadka wax bixiyaa ay maxaa la yidhaahdaa habkay u dhaqmaayaan ayaa waxaa ururkan mamnuuc ka ah in oo kaalmo u weydiiyo agoontaas dadaan ehel u ahayn waxaad ogsoon tihiin agoontaan waxay agoon u yihiin waa aniga iyo adinka annagay agoon u yihiin maanta intaynaan magacaas u kaana keenay maxamed khayr sax ismaanaan aqoonin waxaad ogaataa nin kastoo naga mida ee maanta ilaahay awlaad siiya ama gabar kastoo naga mida awlaadda ay haysato way ku dadaalay maanta waxay bareen waxaa waaye canuga waxaa rabtaa canug ugu fiican oo jaacad kasoo baxay inuu jaacad ugu fiican oo kasoo baxo shaqada ugu fiican oo haysto dadkaas marka aad ku dadaalayso anna aan ku dadaalayo adinkuna aad ku dadaalaysaan waxay ehel u yihiin agoonta ah waxa ehelka u ah waa aniga ilmaha berita garabkooda istaagaya walaashayaan sida maanta isku walaashayn oo intaan meel kasta iskaga nimid aan iskugu nimid berita waxay iswalaashanayaan canugaas aan maanta waxba haysanaa mugdiga ku jira ama gabadhaas ama ay guursanay ama ay la noolanay ama ehel u ah agoonkaasi waa awlaadiina waa kuween sidaas awgeed markaan dhahayo ehel u ahayn waxaan ka wadaa waa dawlada inaan wax u weydiina ma rabno inaan maxaa layaha ururo kale wax u weydiina ma rabno waxa wax loo weydiinayo oo urfankee u dhisan tahay waxaa waaye inay agoonteena u adeegto waxa wax loogu weydiinaan waa dadka ka danqanaya oo ehelka u hawaa waxaad ogaataan hadday fiicnaato annaga noo wada fiicnaatay hadday xumaatana annaga naga wada xumaatay sidaas aageed qofka ilaalinaya oo ay dhibayso xumaheeda iyo burburkeeda ayaa ehel u ah waana adinka iyo annaga waxaa dhacday marka walaalayaal aan raba inaan kusoo koobo 2011 ayaa waxaan bilownay actionkii ugu horeeyey waxaan la xiriirnay dadka cajalada ka arkaydeen oo guddi aan ka soo bilnay Soomaaliya waxay noo soo gudbiyeen waxyaabo cajiibka badnaa waxaa waaye 10 qofood aan ahayn waxaan ku talagalnay 10 qofood la inaan geeyno 10 agoon inaan geeyno waxbarasho qof walba hal can oo ilmihiisa ku darsado waxay noqotay in loo keeno 550 arday 550 canug oo agoon wallahi qalb waxa waaye waa waxyaabo cajiib ay noqotay 550 meeshaan 10 ka sugeyn 550 markay timid waxaan marka go'aansanay oo aan isweydiinay warna dad anaga naga fiican dadka ku jireen ummadda ha loo dhexgalo oo arrintaanayto ha loo balaaro qof kasta la gaarsiiyo tabliiqaas marka horta aan ugu nimid alxamdulillah ilaahay ma taka gaarto 2011 waxaan geynay waxbarasho 27 arday sidoo kale 2012 waxaa iyadana ku darnay 27 kale haddeer waxaa wax barta 54 caruur sidoo kale hadduu ilaahay masana dugsiyeedka soo socda ee hadda bilaabaya bisha July ee sanadkan waxaan qorsheeynaa 27 inaan ku darno waxaa idin sheegaa marka hal arrin aan ku soo gabagabeeyo tabliiqeena ay ugu nimid meesha oo kala waxaan ku tagay waxaan ka soo binay imaaraadka ugaaska cayra jooga xataa ana ka soo biyay waxaa fadhila alxamdu rag kamida nin kamida wuxuu ilaahay qadaray ilaahay khayr siiyo asaga dadka la midka inuu markaan u sheegnay barnaamijkan inuu yiraahdo waxaan bixinayaa 720 arruura iyo 5 sano waxbarashada ninkaas ahaan waa yaryahay 32,400 soo siiyay aniga aan isoo diiday maaha af theory sababta u baxshay isweydiiyay marka sababta u baxshay waxay tahay waxa uu arkay arrinta muhiimadeeda waxa uu arkay oo isku dayay inuu maanta energy aan ugu jiro bari waa daali karnaa si ayna u daalin oo ninkaas wuxuu 5 sano u baxshay inaan hawshan 5 sano wadno waxaan markan u mahad celinayaa ergooyinkii ka kala yimid gobolada iyo magaalooyinka waaweyn ee Norway sida Bergen iyo magaalooyinka kale Tromsø, Kristiansand iyo gobolada Østfold, Vestfold iyo meelo badan
iyo wadamada deriska ah sida Sweden ergooyinkii ka yimid uu hogaaminayo Sheekh Yuusuf jazaak Allah khayr. maamaha Soomaaliyeed waxay leedahay tagtadaada ugu aad timaadadaada saxdeeda taariikhdaada ugu aad wix kugu soo socdo saxdeeda. waxaad la socotaa dugsiyada qur-aanka oo kale sheekha kulley insha Allah tacaala jooga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aan wa callama. dadka waxaa ugu qayb badan kuwa qur-aanka bartay kadibna dadka bara. sidaas daraaddeed dugsiyada qur-aanka waa meelaha aad la yaabayso marka ardadu joogto siday u egyihiin. waxaan awoodi karnaa inaan qurxinno oo dhaxanta meelay kaga dugsadaan oo ay ardaydu maaragtay inaan dhisno. dugsiyada iskuullada sidoo kale waxbaa lagu bartaa sida sheekhu sheegay aqoontu waa awoodda maanta bani aadamka hogaamisa. sidoo kale hawlaha guud hawlo badan baa jira ceelal badan geedal maaragtay dhul badan oo manaha deegaanada aan ka jirno ee ku jira taas waa hawlaha guud. midna waa midda samafalka dadaalka ay sameeyeen waa midda suurto gelisay inay wax badan qabtaan oo ilaa 1000 arday ku dhow maanta in wax la qabanayo. marka waxaan jeclaan lahaa khayr Allah idin siiye labada arrimood baan xooga saaraynaa. ta labaad waxaa jira marka waxbaad bixisay xagee wixii aad bixisay insha Allah tacaala seed ku ogaanaysaa waa in la helaa xisaab celin ma inta jeebkaaga laga qaado aanay soo noqon waa inay soo noqotaa waa inaad jawaab heshaa waa inaad xisaab celin heshaa aad tiraahdo waxaan insha Allah tacaala xagee waxaygii ku baxeen. waxaa la soo jeediyey sida lagu heshiiyo in ama 6 bilood ama sanad kasta shir sidaan la qabto lana soo gudbiyo barnaamij xisaab celin ah oo la xiriira wixii la bixiyay halka ay ku baxeen horta inta soo xarootay wixii la bixiyay meesha ay ku baxeen iyo sida ay u baxeen in dadka loo soo gudbiyo. haddii markaas ay ku qancaan alxamdulillah hadday ku qanci waayeen go'aanka inay qaataan. ta saddexaad waxaa jirta yaa ka mas'uula marka wixii aad bixisay yaa maamulaya yaa ururinaya yaa qabanaya. laba guddi baa jirta guddi fulin la yiraahdo oo guddigaas hadda ragii dhalinta cusmaatay oo Sheekh Cabdi iyo Shiilaale iyo raga ay ka mid yihiin hadda waa laga gudbay dhalinyaro firfircoon waayadan waxaa socotay barnaamij la yiraahdo damu jadiid dhig cusub inaan furno oo dhalinyarada la hawlgeliyo ragii hore u joogay oo yara daalay laga gudbo. arrinta kale oo maaragtay muhiim ah xaqiiqdii aadna maaragtay meesha uga jirto waxaa ka mid arrin la yiraahdo NGO oo guud ahaan gobolka xaqiiqda markii aad fiirisid fara kulul ku haysa. waxaan moodaa dadka nagu inay barteen xaqiiqda marka ay sheeg dhaqan aan lahayn jirin oo maaragtay dadka aan wax badan uga duwnaa jirin oo dhaqanka la yiraahdo gacan hoorsiga xaqiiqda marka meesha tito arko qof magaalada ku cusbaateen geesaal wala baxalin NGO ma wada halwle marka waxaad dareemaysaa xaqiiqda dhaqan cusub maaragtay inay meeshu ka bilaabaan. waxay kaloo dhib ay ku tahay NGO-ladaas magaalo kasta markaa tagtid 100 tabeela ka soo guryaha markaa tiriyo tabeelayaasha NGO-yada haddaysan tabeelayaasha NGO-yada aysan badnayn xaqiiqdii mararka qaar waxaas leedahay waa isleegiin. marka taas waxay keentay inaysan haddana haba banaadeen oo gacan hoorsiga noocaas ah ku shaqeeyeen oo dadka nagii in maaragtay la isku dayo qofku hadduu maaragtay waxba bixinayn inaan wax barnaamij uusan qaban karinin haddana dhibaatada ay ku hayaan yacni waxa markaa fiiriyo shaqada ay wada haayeen kulligood hal nooc ay tahay macna shaqo loo yaqaan cunto shaqo ku bedelasho oo yacni wax kale inaysan ka shaqeynin ayaa dareemaysaa. maalin baa waxaa dhacday intii hadda ramadaanka lasoo dhaafayay waxaa noo yimid ninka haysta WFB madaxa maxaa la gobolada dhaca Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug isku haysta. taqriiban marka waxaan la kulannay 12 NGO oo degmada Qurcaan kaliya markaas ka rajis kareysneed. qadiyad soo dhacday oo maaragtay meesha ka jirta ayaa loo hadlayay markaas uu kulligan waxaad maaragtay xakada kala marka shaqada WFB iyo NGO-lada ka dhaxeeyay marka dib si loogu furo ayaa araajidii iyo baraboosaladii iyo projectadii dib loo furay kulligood 12 NGO waxa kan shaqo cunto ku bedelasho. markaas waxaan diininkii oo Korean ahaa markaas Koreaniyo maxaad dadkan shaqooyin kala qabataan hay'adaha UNICEF maxaad isugu daylaydeen barnaamijyada kale iyo fursadaha kale oo aad haysaan inaad dadka uga faa'iideysaan. markaas walaal dad baahan shaqo kale ma qabsan karaan. dadmees markii waxay kusinaysaa inay shaqada ay haayaan inay yihiin oo kaliya yacni dadka inta dhar loo soo geliyo magaalada laamigeeda la xaqaaqo dadka laga aruursado dana maaragtay qol la gashto maaragtay wax loo turturo
arrinta NGO lada marka caqabad adag ay ku helaan oo maaragtay aad u kala xaqiiqdii oo dadkii la baray inaysan ayagu maaragtay isku dayeen marka si weyn u fiirisid project yaro ka soo socda marka aad hadda tiraahdo qashka maanta meesha ka xaq maaragtay wax yaro hal dhiso ama isku hal dhiso yani in dib maaragtay ay ku hayso ayaa dareemaysa arrinta NGO lada insha Allah bil kariimna waxaanu galabta hortaaganahay waa ilaahi weynaa waxa malaa'igaha garbaha naga saaran ee erayada naga qorayna inaanu ka rumayno oo aynaan been sheegin oo iska iraaha laga maqlee oo yan ha eraygaas tixgelin oo sameeshi loogu talagalay gaari in ilaahay inaga ilaaliyo ballanka aanu qaadnay inaanu ka dhabayno maalinta yawmal qiyaama in la weydiinayo maxaa galabtii sabtigi oo taariikhda 26 maxaa tiraahday ilaahay maalinta yawmal qiyaama waa la weydiinayaa rag iyo dumarba inaanu ka dhabayno qowlka aanu galabta qaadnay qofkii aan qowlka ka maxaan ku iraahdaa ka rumayn doonin oo wax ka beenayn doono oo hadhow ma ogeyn ma malayn uu ahaan inuu galabta fartaba taago si macnaha uu layska kaga baxo haddii aanu internet u istaagno gobolkayagii waxaan u malaynayaa inaanu wax muuqda aanu ka qaban doono agoomaha ha noqoto iskuullada ha noqoto curyaaninta ha noqoto camoolayaasha ha noqoto dhibaato badan baa wadankii ka jirta waxaanu isu sheegayna ma aha waxaanu moognahayna ma aha kallay dhalinyaro yaryar ee da-yar 20 sano ku da-a dabadeedna dhulkan ku qaangaarta way iska jirtaa hase yeeshee waxaan u malaynayaa Soomaalidu waxay tiraa urjiif hooyadu ku gowracay cunuga yarka uu ku gowracay yahay labada waalid ee marka insha Allah bil kariim waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa arintana Allah ka dhigo tii hirgasha Allah ka dhigo hadafka beeshii loogu talagalay kii gaara Allah ka dhigo qowlka aan nuleenahay kuwii ka rumeeyo oo ka sheega insha Allah bil kariim waxaan ilaahay ka baryayaa qalbiganaga iyo quluubtanaga iyo qowlkanaga iyo qabashadayada ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu tii sarreysa ka dhigo kii hirgalana ilaahay ka dhigo hadafkanagana ilaahay midaayo insha Allah bil kariim عفي مساوح أن رجل دمر اسمه عفينه كل أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران اليأس يعبث بالأمل ويهز كل كيان